magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal weli waxaa ka sii socda mudaharaad ay dadweynuhu ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan go'aankii ay maalintii shalay ahayd ku dhawaaqday xukuumadda Somaliland. waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay mudaharaadyada magaalada Boorama ka soconaya 24 saacadood ee ugu dambeeyey, inkastoo aanay mas'uuliyiinta cusbitaalku bixinaynin wax xog ah oo la xidhiidha tirada khasaaraha ka dhashay. haddana inta la xaqiijiyey ku dhowaad 10 qof ayaa ku geeriyooday mudaharaadyada ka socda magaalada Boorama. isu soo baxayaasha ayaa ilaa iyo habeenkani caawa ah jidadka waaweyn ku gubaya taayiro, kuwaasi oo ku dhawaaqaya ereyo ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan go'aanka xukuumaddu ay qaadatay. geesta kalena madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo markii ugu horreysay ka hadlay xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada Boorama ayaa kasoo markii uu taxsiyeeyay ehelada iyo qaraabada ay ka baxeen dadka iyagu ku naf waayay mudaharaadyada ka socda magaalada Boorama. waxa uu amar ku bixiyey in ciidanka militariga ahi ay dib ugu noqdaan xeryahooda, sidoo kalena waxa uu sheegay in arrin kasta oo ku xidhanta in nabadgelyada la ilaaliyo ay muhiim tahay in laga wada hadlo. waxa aan faraya dhammaan ciidamada qaranka ee militariga ee magaalada ku jira inay dib ugu noqdaan xeryahooda. ugu dambeyn, anigoo ah madaxweynihii aad aqlabiyadda ku doorateen, walaalayaal waxaan si dhab ah iiga go'an in wax kasta oo la tabanayo lana tirsanayo inaan wada hadal ka furno oo miiska dushiisa ku xallino tii oo aan dhiig inaga daadan magaalooyinkeenuna inaga dubin. hadalka madaxweynaha ayaa imanaya kadib markii maanta dhammaan salaadiinta iyo cuqaasha gobolka Awdal ay ka hadleen arrimaha ka taagan magaalada Boorama, iyagoona ugu baaqay xukuumadda Somaliland in ay guud ahaanba ka saarto ciidankaasi. hase ahaatee ilaa iyo habeenkani caawa ah xabadaha ayaa ka dhacaya afarta dhinac ee magaalada Boorama, kuwaasi oo ciidanka militariga ahi ay ku kala dareerinayaan dibadbaxayaasha isugu soo baxay koornayaasha iyo xaafadaha magaalada. nin kasta oo maanta awood u leh inuu difaaco cirdigiisa iyo maalkiisa iyo dhulkiisa diyaar ha u noqdo inuu difaaco. wallaahi waa godob aan hadino billaahi inaanay hadin. dadka sida badheerka loo laayay waxa dusha ku qaadanaysa ciddii amarkaa bixisay, iyagana lagala xisaabtamaya. wixii warara ee ka soo kordha xaaladda ka taagan gobolka Awdal sida uu u hirgalo amarka madaxweynuhu iyo wixii faahfaahin dheeraad ah ee ka soo baxa khasaaraha ka dhashay mudaharaadyada ka socda magaalada Boorama, halkan ayaad kala socon doontaan.